بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan uga tacsiyeynaa dadkii Soomaaliyeed ku shahiiday qaraxii maanta ka dhacay wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada horteeda waxaan dadkii ku shahiiday kulligood Ilaahay uga baryaynaa in heladoodina samir iyo iimaan Allah ka siiyo iyagana Ilaahay jannadooda u sii macayo waxa kaloon leenahay inta ku dhaawacantay Ilaahay iyagana caafimaad degdeg ha u siiyo si gaar ah waxaan tacsiye halkan uga dirayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada xildhibaan ahaana wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Saqar Ibrahim Abdallah wasiirka iyo qoyskiisa waxaan leeyahay kulligiin Ilaahay ha idin dhib yaraayo isagana jannadii Allah ka waraabiyo waxa kaloon dhammaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaya in dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay sii wadida la dagaalanka argagixisada dagaalka aan kula jirnana aanu joogsan doonin haddii Ilaahay yiraahdo inta aan ka tirtirayno dhulkeena oo dhan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh